madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud geega kulan Muqdisho kala qaaday madaxda hay'adda gargaarka Mareykanka USAID Danjire Samantha Power madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la wadaagay danjiraha qorshayaalka hortabinta in la dawladda Soomaaliya niyada wal hasaarowka kulumaysiga xoolo beero iyadoo mudnaanta la siisay linkumaara ma lahaay inta la ka tiirsada gargaar bini'aadanimo waana la ka bedel lahaay maalgalado dhaqaale horseedo horumar waara madaxweynaha iyo bogaaday taageerada iyo garab surmowka hay-adun iyo shacabka dawladda Soomaaliya moojadi usoo ka adkaysaday intii wadaayaan dardargeliyowka barnaamijyada maalgaladowka horumarinta adeegyada bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha saasaata madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sheegay intii dawladda iyo xooga saarahayta barnaamijyada la hormariyo maareynta biyo la ka dhaliyo tamarta intii wala ku qabada aqabado isbedelka cimilada intii la wada dawlad dhisowka Soomaaliya iyo intii la dedejiyo hanaanka federaalka si dalka Soomaaliya indeer isku filnaansho buut iyo horumar bahsan dhinaca kale marwa Samantha Power iyo balan qaaday intii hay-adun iyo biyo doonta lacag deeq oo deerasa 470 milyan taasoo dhikan lacagta hay-adii qoondayti Soomaaliya oo 268 milyan deeqdan yalinka tala galay intii walunku qabada awaaro iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah bulshada booqashada dalkan iyo hakadeertii marwa Samantha Power iyo xoojiyahay iskaaladowka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dhayaala lamada dal